kulanti waxaan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada qaybtii saddexaad ee sheekadii halkudhigeedu ahayd gar jacayl ha la qaado. guriga jawigiisa waxaa ka socday sheekooyin badan. gabadhu waxay ahayd diidan oo gol diidan ayay ahayd. aabaheed markay aragtana madaxay raaricinaysay. markii odagii oo guriga banaankiisa fadhiya waxaa timid habartii oo banaanka ka timid neeftuurayso oo aad mooddo inay magaalada oo dhanba soo eryatay. say u soo ordaysay daal la timid guriga. daal kalena ma ahayne waxay ahayd mootada checkpointigan uga deg, mid kale ka raaca xagga uga deg, mid kale ka sii raaca xagga uga deg. cariiriga beledka ka jira iyo jaamka faraha badan iyo baabuurta aan isdhaafi karin iyo meelaha lagu baarbaaraya iyo culeysyada faraha badan ee jira iyo dadku hadalhaynta ay hayaan iyo wax badan baa habarta maskaxdeeda ka guuxayay. goortii ay guriga soo gashay ayay bilowday sida jeer webi ka soo baxdo kale iyadoo neef weyn fuuf ka siinayso odagii iyo soo socay dishay bajaajka raac midkaan raac mid kale ka deg. waa magaalo daal badanba rafaad badana waa ku silca meeshan aniga naade yaad u gabyayda maanta. hadda magaaladana ku soo daaray hadda maada war iga hayaba baraambur baan kugu ogaaya ma gabay baad gashay. hadda waqtigaa keenay beledka ka waran ma magaala jirta meeshaan. haye cagi baa nabslaaday oo biyina galay. guriga haddaad timaad ilaahay baa loo mahadnaqaa. markaa baxaydan ilaahay baa la tala saartaa. waa alxamdulilah haddaan soo laabtay. cabsida beledka ka jirtaa saas waxaan ku iri gabadhan aad dhashay gabar waa hooyadeeda la yiri. si hoos waa ula hadlay gabadhan anigu markaan la hadla mayana ima dhahda hayana ima dhahda laakiin wiilka waa diidan tahay inaan ku dara aan rabo. hadda maxaa sameynaa ma loo hadalnaa haddee wareedha dhegaysa adiga adaa gabadhan wax la wada haddaad adiga wax la wadin gabadhan waa ogolaaleed wiilka adaaba wiilka diidanba. wiilka anigu adeer baan u ahay. gabadhan inaan ku daraan rabaa. magaaladan dhibkeeda iyo inay iska dugaashadaan baan rabaa. inay aqal wada degaan baan rabaa. awlaadooda inaan arkaan rabaa. hadda waa si fiican oo gabadhan la hadlaayaa bal waxay isu goladay yaa bal waxay isu gabadhan la hadlaayaa maalin walba saasaa tiraa gabadhan la hadlayaa baa tiraa marka xagga tagtina waa kula socdaaho odagan qayladiisa sayinla ma waayaha iska dhaadiya haddaad doonta dhiib gabadhan wax ka dhaadhici may xaaji raalle oo gabadha waa la hadlaayaa saas maaha arrintii qabooji yaa qabooji arrinta xaaji saas ma ahane. goortii ay odagii ka tagtay cabbaarna sii socotay ayay laftirkeeda waxay bilowday inay tiraahdo wiilkan gabadheeda see loogu darayaa odagaanaan barnacay waa kana waa na qasbayaa hadalna kuma celi karno. keligeed baa hadlaysay ayadoo weliba wiilka diidan gabadheedana rabta ninka ay rabto in la siiyo mar kale habarti. hadda odagan wuuna qasbaayaahe seen wax yeela anigu hadda wiilkan ma rabee gabadheeda ninkay rabtaa la rabaahe hadda maxaan sameeyaa talow arrinta wallahi way u qasan tahay xageen ka bilaabaa hadda. hooyadii oo sidii u hadlayso ayaa waxay aragtay wiilkii oo kursi ayna aysan jirin. waxay isku dayda inay wiilka ka dhadhicdo inuu gabadhan walaashiisa faraha ka qaado. gabar kalena ay ayada u raadinayso odaganna uu la hadlo ee dhibka badan faraha laga qaado. gabadhina waa ku dhibtootay anna waa ku dhibtooday. gabadhina waatan kuma ogola inaad iska dhaaftaan jeclan lahaa. wiilkiiba ayadoo salaamaysa hadalkan u raacaysa. hooy see tahay waa la fiican yahay. hadda hooy macaanow waxaan ku leeyahay arrintaan yaa beriga nuuriya maa shilaysa haytaa lugahada boorka ka buuxo. war nuuriya mashideena magaaladaan kusoo lugeeya adaan ku raadinaya maanta o dhane inaan kula hadlaan rabaa hooy macaan bal aan isla hadalna labadeena. aniga waa kula hadlaa maalin kastaan isla joognaa warka cusbo maanta wadaxow yahay. hooy macaano wax kale maahan waxaan rabay gabadha walaasha anaa iyo dad ah oo kula hadlaaye. maxaa dhaco gabartan in iga fiican maa siihe. adiga waxaas ka baxeey adiga mid ka fiican aan kuu raadina oo ka baarisan midda maa kasin gabarta ilaa waxay ii diidaysa habartaa ku daaban. yaa may saas maaha saasaa u maleen saas maaha aniga iyo dadaaba ahay laakiin mid kale aan kuu raadina oo ka baarisan oo cagaha kuu dhaqayso. hadalkii markii uu intaa uu marayo ayay tartiib habartii odagii soo socday inta aragtay tartiib ka dhaqaaqday. dhinaca kale waxaa ka socday isna waa wiilkii Faysal ahaa isna calaacalkii ku jiray. wax kale kama uusan calaacalayn dhibaatada beledka taalla iyo gabadhan sidii uu ku heli lahaa. sababtoo ah wuxuu ogaa gabadha in xayndaab adag isagan oo halkaasi ay ka muuqato inay arrintu ay tahay mid cakiran ah meel looga gudbi karaana aysan jirin balse dadaalku uu yahay midaan meesha ka reebanayn. gabadhuna waxa uu la socday inay in badan isaga xaggiisa ay u soo shanjeerto laakiin haddii odaga iyo habartu isu kaashadaan waxa uu dareemayay in meeshaas eber ay noqon doonto. keligiis baa isla hadlayay ma heli doonaa gabadhan
abooyo oorideeda ma noqon doontaa oo reerkaas mar walba ka mid noqon doonaa sideen wax yeelaa xaggeen u maraa yaan u diraa odagan ka adag oo aan la kaashadaa arrimahaas kaliiska leh wallahi billahi waa yaab maalmahan culaysyo badan baa magaalada waa iska xiran tahay meelaha kala duwan gaadiidkii waa la baarayaa meelaha qaar in la maro yacni suurtagal ma ahan dhibaatooyin kalena way ka jiraan xaafadda runtii faadumo aniga aad baan u jeclahay odaygii aabaheedna waxaa weeye hadda waxaa laga sheegayaa wiil adeer uu yahay inuu gabadhiisa ku darsanayo wax aan sameeyo wallahi ma aqaan yacni cid aan u dira xataa odayga oo runtii ku qancisa in anigii gabadhiisa aan isjecelnahay wallahi wax aan sameeyo ma aqaan arrinka wuxuu ahaay arrin markaas calacalkiisu mid kasii baxsan xaaji cali baxsan siigaale ay weliba ay ku luuqayso waana hees markaasi jacaylka si dhaba uga hadlayso wixii isaga hayay ayay ka turjumaysay taasuu dhegta la raacayay una arkayay inay taa waxa isaga haysto taasoo ahayd Thank you.